Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulantaan badan daawadayaal. Barnaamijkan waxaan kula wadaagi doonaa laba fariimood ama laba qodob oo halis ku ah bulshada Soomaaliyeed, kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyey aad u soo ifbaxayay, bulshadana in looga dino lana tuso khatarta ay leedahay ayaan kula wadaagi doonaa. Intaan labadaa qodob u gelin, waxaan kaa codsanayaa inaad ugu soo biirtay hadda aan nala joogin barnaamijkan aad sida bulshada Soomaaliyeed ugu baraarugaan fariintan aan la wadaagno aad la wadaagtaan. Sidoo kale qaybaha kala duwan aan baraha bulshada ku leenahay ku soo biirtaan sida Facebook iyo TikTok iyo YouTube-ka oo aad nagala socotaan. Haddaba labadaa qodob ee ku ah bulshada Soomaaliyeed jiritaankeeda halis waxay kala yihiin: qodobka koowaad oo ah bulshadii Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed nooc kasta ay tahayba, waxaa iskaga khaldan siyaasaddii iyo dantii bulshada Soomaaliyeed ee wixii gaarka u ahaa, hadday af ahaan lahayd iyo hadday diin ahaan lahaydba. Taas oo dadka baraha bulshada wax u soo gudbiyaan ay fakarka ay qabaan ay si aan wanaagsanayn ay u gudbiyaan. Hadday ahaan lahayd inay dadka ay wax ka soo gudbinayaan ay wareysanayaan ay ahaan lahayd inaysan ku habboonayn, iyo hadday ahaan lahayd dad iskood iyagu waxan oo bulshadoo dhan aan faa'iido u lahayn, bulshadan lid ku ah hadday ahaan lahaydba. Taas oo keentay in bulshadii ay waxyaala meeshay doonto ha joogtee bulshada Soomaaliyeed halis ku ah oo jiritaankeeda halis ku ah iyo diinteeda iyo dhaqankeedaba ay kala garan weydo. Haddaynu sii gudagulno, wuxuu noqonayaa qodobkaasi in bulshadu ay u aragto wax bulshadoo dhan ku ah cadow ay kala xigsato. Taas oo saad u fahantaan aan idin jaleeciyo bal barnaamij dhowaan laga duubay magaalada Burco, taasoo gabadh wariye ay ka duubtay oo ay ku weydiinayso argagixisada ka lagula dagaalamayo Buuraha Caalmiskaad iyo bulshada magaalada Burco. Ay tiri tii ayaa taageersan tihiin. Qodobkaas oo in la weydiiyo ama su'aashaas oo in la weydiiyaa ama bulshada saa loogu dhigo aysan habboonayn. Hase ahaatee markii dambe gabadhii wariyahayd markii la weydiiyey ee su'aasha noocaasi ku kalifay lagu yiri waxay tiri oo sheegtay har iyo habeen siyaasiyiin ayaa waxay dhahaan bulshada Somaliland waxay yihiin dadka argagixisada la shaqeeya, ama hadallo noocaas oo fara badan ayaa u kalifay ayay tiri. Haddaba bulshada Soomaaliyeed waxaa ay inay kala ogaadaan muhiima hadalka siyaasiga iyo siyaasiyiintan hoggaamin la'aanta iyo maal gaabnida isku darsaday, kuwaasoo hadallada ay iska leeyihiin aan ka fiirsanayn, taasoo aqoon darrida iyo jaahilnimada Soomaalida oo madaxda Soomaalida keenaysa. Barnaamij hore ayaan ku tilmaamay siyaasiyiinta nooca u hadasha waxa ay yihiin iyo danaha ay ka leeyihiin. Halkan ayaad kasii daawan kartaa. Haddaba bulshada Soomaaliyeed waxaa la gudboon inay kala ogaadaan bulshada waxa u dantaa iyo waxa siyaasiga hadalkii siyaasigu ku kala kaxaynayo. Taasoo aan ognahay Soomaalidu meel kasta ay joogtaba in siyaasad xumo iyo hoggaan xumo ay halkaa dhigtay, ayna ugu sii darsameen
inay hadallada noocaasa iyo qabyaaladda. Haddaba bulshada Soomaaliyeed waa inay ogaataa danta siyaasiga iyo caqliga siyaasiga Soomaaliyeed meel kastaba ha joogee ka noocaasa inta badan ee wax garadka ay ku jirta ka hadli mayno waxaynu sheegaynaa kuwa noocaasa in aan bulshadu ku kala dhiman. Waa shaqsi berri iska tegaya, qaarkoodna aysanba jooginba waddanka, waxaana danna aan ka gelin. Hase ahaatee inay hadallada noocaasa dhahaan ay maankooda iyo araggooda gaabani u tusay, bulshaduna aysan, maadaama irbadda qabiilku ay ku mudan tahay oo Soomaaliya aan taa looga calhelayn, inay saa u ogaadaan ayaa habboon. Aysan nina dan u ahayn. Qodobka labaad waa muuqaalada xun ee waddanka laga gudbinayo, kaasoo keenaya khatar badan oo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ku ah, halis ku ah. Haddii aad daawatay buugga ama qisada ka dambaysa buugga Rajadu Waa Innaga ee Rob Buu qoray, kaasoo iyadoo qisadoo dhammaystiran aan iyadana halka kusoo gudbinay ama baraha bulshada kala duwan aad ka aragteen, waxa ku kalifay taasoo ay tahay wax lanaga arkay. Qisadoo dhammaystiran halkan ayaad ka daawan kartaa ama waxaad ka baari kartaa miidiyaha badan bay ku jirtaa, sida page-kiisa oo kale. Qoraaga qisada ku sababtay. Dhanka kale, haddii aad daawatay qisada ku kaliftay ama barnaamijka ku kalifay Coach Maryama gabadha la dhaho, taasoo dhowaan timi waddanka, arrinta ka qabsatay waddanka China ama su'aasha lagu weydiiyey. Hello，你好。你好。Hello，去哪里？Somalia。啊？Somalia。索马里。啊。OK。索马里。索马里啊。索马里怎么？没有。啊，这索马里。waxaa ma dadkii islaan jiray ma dadkii islaan jiray maya taasoo markii dambe ku kaliftay inay waddanka timaado, ayna soo gudbiso bilicda iyo muuqaalada wanaagsan ee waddanku leeyahay si ay caalamka u tusto. iyadana qisada ku kaliftay haddaad soo daawatay waxay kuu muujinaysaa in waxyaalaha laga gudbinayo waddanka oo si fudud oo aan dadku dhaadeen, maadaama cid walba ay gelinayso internetka wax inay ka digtoonaadaan, taasoo baryahan aad u soo badanaysay xiisadaha dagaalada iyo qoryaha iyo in aad loo geliyo baraha bulshada, taasoo keenaysa sumcad darro u keenaysa qofka Soomaaliga ah iyo qowmiyadda ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogtaba. Bari ka maalin haddaa waddan ka baxdid lagu dhihi maayo maamul hebel iyo reer hebele lama yaqaano, ee waxaa la yaqaanaa waddanka ama waddankee ka timi baa lagu dhahayaa, ama waxaa lagu dhahayaa jinsiyaddaadu waa maxay, ee cidna kuma weydiinayso ama qabiil ha ahaato ama gol meesha aad ka timi. taasoo markaad ugu jawaabtid waxaan ahay Soomaali ay muuqaalada iyo xogta foosha xun ummaddu markay kaa baadho internetka, maadaama wax kasta ay ku jiraan baraha bulshada iyo internetka. caalamku maanta aan waxna ka qarsoonayn, meesha wax laga baadho oo wax laga ogaado ciddii aan xog laga hayn ay tahay, taasoo ay soo baxayso muuqaaladaas. kadibna qofkii aan ka aqoon ama ummadda aan ku aqoon ay saa ka aaminayaan, taasoo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadaba halis ku ah. haddaba gabadhaas iyadoo sidaas ay jirto ayaa waxaa laga yaabaa in
internetka ama Facebook gaar ahaan inay maadaama ay dad leeyihiin ajaanib yuhuud iyo wax horumarkeena iyo jiritaankeenna diidan ayaa waxaa laga yaabaa in dad Soomaaliyeed iyagoo baabka aan soo sheegnay u fakaraya inay qof ku cadaadiyaan amaba ay ku ku report gareeyaan. Sidaad ogtiinba gabadha aan soo sheegnay oo qisada ku timi waddanka in Facebookii uu muuqaaladii quruxda badnaa ay duubaysay bilicda waddanka ay ka hadlaysay oo maantada u dambeysay ka saaray muuqaaladii oo dhan page-kiina saa lagu xidhay, taasoo ay sheegtay in dad Soomaaliyeed ay qayb ka ahaayeen ayna report gareeyeen iyagoo qaab qabiil u fakaraya oo laga yaabaa inay maamul iyo wax noocaasa u fakaraan. Haddaba waxaad dadka caqliga noocaasa maadaama ay qisada aad la socoteen qisada ku timi ka keentay oo waddanka ku soo celisay kuna kaliftay inay muuqaalada dubto waddankeedana ku soo noqoto, in dadka nooca u fakaraya ee caqliga noocaasa ku fakaraya ee juhalada ay qayb ka ahaadaan in Facebook muuqaaladii lagu dacweeyo dad badan oo ilaa 100 gaadhay say sheegtay gabadhaasi ay muuqaaladeedii report gareeyeen ama dacweeyeen. Waxa weeye wax aad looga xumaado, iyadana halkaas ka sii wad ayaan leenahay bulshada Soomaaliyeedna YouTube-keeda inay ku xidhmaan maadaama ay YouTube-ka wax kusoo gudbinayso wixii hadda ka dambeeya ayaan rajeynaynaa. Ummadda Soomaaliyeed ee bulshada Soomaaliyeed qof walba aqoontiisa iyo caqligiisa ayuu ku hadlayaa maadaama uu qof walba kusoo gudbinayo ra'yigiisa baraha bulshada oo aan cidna la xakameyn karin. Waxaa wanaagsan qofku markuu wuxuu ka fikirayo wuxuu soo gudbinayo inuu ka fikiro waxaasi dan ma ku yihiin bulshada Soomaaliyeed, dan ma yihiin dhaqankaaga, diintaada, wax ma yeelayaan, inuu marka hore ka fikiro intuusan wax soo gudbin. Barnaamijka intaasaynu kusoo koobanaa, meel walba hala gaadhsiiyo.